mobilada caaqilka ah ee hadda iga daawanayso ee touch screen-ka ciladooda iyo shidadoodu ay badan tahay. waxyaalo fara badan ayaa lagu arkaa. aan ku weydiin ku aragtay cilad ah inuu mobilka mararka qaar uu kaa noqdo mid aad u culus markaad internetka isticmaalayso, markaad fariin dirayso, markaad saaxiibkaa wacayso, culays aadan aqoon meesha uu ka yimid ku aragtay mobilkaaga. haddaba haddii jawaabtaadu waxaa tahay, fiidiyogan waxaan kugu tusi doonaa xalka ciladaasi. soo dhawaada mar kale, waa Ismaaciilis Program. hagaag saaxiibayaal, ciladaasi waxaa keentay software ama application inoo qarsanaa kaa runtii dad badan aysan ogeyn. barnaamijyada internetka u isticmaalna ee social media waxaa loo qaybiyaa ilaa iyo 3 qaybood. kuwa xogtooda ku kaydiya hawada ama cloud, hadba waxa uu taqaano. kuwa xogtooda ku kaydiya server, halka kuwa kalena xogtooda ay ku kaydiyaan isla mobilka iga daawanayso. ma ogsoon tahay daawadow, WhatsApp oo runtii daily aan u isticmaalno inuu xogtaada ku kaydinayo mobilkaaga. fiidiyogan waxaan rabaa inaan ku tusiyo waxyaalo fara badan oo aad ogeyn, taasoo ah WhatsApp-kaaga waxa uu kula isticmaalayaa maskaxda mobilkaaga, weliba uu buuxinayaa. waxaa taas iga sii daran fiidiyooyaasha aad la soo degtay, fariimaha aad dirtay, waxaas oo dhan iyagoo MB ah ama GB ah, hadba waxa u taqaano, waxay dhex fadhiyaan maskaxda mobilkaaga. waxaan u diyaarsanahay hadda inaan adiga soo tusiyo bal meesha ay mobilkaaga fariimaha iyo fiidiyooyaasha WhatsApp-ka ay kugu jiraan. intaanan laakiin ku tusin, waxaan rabaa inaan kuu sheego culayska badanaa mobilada ku yimaado waxaa sababa mobilka oo waayo space oo shaqo uu ku qabto. haddii storage-ka mobilka uu buuxsamo, waxa isla markii imaanayo culays aad u fara badan oo aan jiha lahayn. haddaba ogow, marar qaar adoonan mobilkaaga buuxin ayaa waxaa buuxin kara WhatsApp-kaaga. bal aan ku tusiyo WhatsApp-kaaga halkuu mobilkaaga ka degan yahay. hagaag saaxiibayaal, bal aan ku tusiyo sida WhatsApp-kaaga iyo mobilkaaga iskula falgalayaan. soo kacso WhatsApp-kaaga, kadibna dooro calaamadda geeska ee 3 dhibcood, kadibna ka dooro settings. markii aad doorato settings, kadibna ka dooro qaybta ay ku qoran tahay storage and data. markaad doorato kadib kasii dooro manage storage. hadda waxaa u jeedaa qaybtan kore ee geeska ah 58 MB used, oo loola jeedo 58 MB ayaa laga isticmaalay maskaxdaada. waxaa ii banaan halka geeska waxaa u jeedaa 5.9 GB oo keliya ayaa ii banaan. magaca Ismaaciil ayaa wuxuu iga cunay 57.6 MB. saa u jeediin 57.6 MB ayuu iga qaatay. hadda waxaa ogaataa WhatsApp-kaaga xogta wuxuu ku kaydinayaa maskaxdaada. waxaa ula jeedaa maskaxda mobilkaaga. tusaale, haddii aan rabo marka inaan ogaado qofkan xogta aan wadaagnay, waan ku dhufanayaa. sida u jeediin video ayaan wadaagnay. haddii aan rabo marka mobilka maskaxdeeda inuusan iga buuxsamin, waxaan sameynayaa videoga xogta aan wadaagnay oo aad u badan awgeed ayaan iska deleedayaa anigoo taabanaya select all, kadibna taabanaya calaamadda geeska ah ee delete, kadibna sii taabanaya delete. automatic 56 MB ayaa dib ugu soo laabatay. waxaa u jeedaa meeshan 0 KB inuu taagan yahay, sababtoo ah maskaxdeeda ayay marka hore ku kaydinayay, hadda laakiin waa nadiif. si lamid ah, haddii WhatsApp-kaaga uu ku kaydsan yahay fariimo badan ama dad badan aad sheekaysateen ama aad group ku jirto, fadlan halkan imaa oo keliya. wixii groups ah qaybtan hoose ayay kaaga soo muuqan doonaan. magaca chats wixii ka hooseeya ayay kaaga soo muuqan doonaan. wadada fudud ee aad maraysana waxay tahay marka koowaad 3 dhibcood inaad soo doorato, kadibna storage and data, kadibna manage storage inaad imaato. si lamid ah, waxaan kugu darayaa waxaa ogaa kartaa xitaa internetka inta ay isticmaashay. tusaale, waxaan daawanayaa network usage. halkan waxaa u jeedaa internetka inta waqti aan isticmaalay iyo waxa ugu badan aan u isticmaalay. internetka laga bilaabo 5 bisha 3 2021 waxaan isticmaalay oo keliya 57.6 MB oo keliya. waxaa wax lagu diray iyo wixii aad heshay KB-yadii iyo MB-yadii aad isticmaashay internetka iyadoo faahfaahsan ayaad helaysaa. si lamid ah, internetka waxa ugu badan ee kaa cuna iyagoo faahfaahsan ayaa halkan ka arkaysaa. ma message, mise cola, mise waxa waa media oo u taagan
cod ama video. haddaba farsamooyinkan waan filayaa wax badan inay kaa saacidi doonaan. hadduu maskaxda kaa buuxsamo mobilkaaga sida aan kuusoo sheegay oo keliya samee adigoo sameynaya waxa loo yaqaano delete fariimaha qaar oo aadan rabin maadaama mobilkaaga xogta lagu keedinayo. waagag saaxiibayaal, hadda waan filayaa inay la soo fahanteen wax badan aad soo waateen. si lamid ah waxaan kaa iloobay whatsappkaaga wuxuu sidoo kale xogta ku keedin karaa gmailkaaga ama emailkaaga hadba sida u taqaano waa haddii aad ku xirato. haddaba saaxiibayaal, waxaa jira ayaan filayaa saaxiibo badan oo aan ogahay runtii whatsappkooda saaid u isticmaala. waxay ku isticmaali karaan whatsapp group ama waxyaalo kale waan ogahay way jiraan. fadlan qaybta hoose faalada ugala wadaag adigoo ka wacaya ama communication gareynaya. si lamidaane la wadaag videogan maadaama aniga aan kula soo wadaagay ujeedkuna uu yahay inaad ka faa'iidaysato. maxaa kuu diiday inaad saaxiibka kula wadaagto adigoo taabanaya calaamadda share. waxaan kuu rajeynayaa guul wacan iyo videogan iyo video kale oo ka xiiso badan.